barnaamijkeena aan ku talagalnay soo dhaweyntiisa sagootinta ayaan ku guda jirnaa waliba qaybihiisii hore waxaan ku soo dhaweynayaa Maryan waa shamis oo kamid ah gabdhaha dumarka warbaahinta Soomaaliyeed sirkeen oo haatan naga maqan laakiin waxaan ku soo dhaweynayaa sacabo furan iyo niyad sami runtii waxa uu noqday qof nasiib leh waayo bahda saxaafadda oo isku duuban ayaa soo dhaweysay taasna waxaa laga dareemi karaa inaynu ku faraxsanahay magacaabistiisa waxaan ilaa ugu baryayaa xilka loo culus ee loo magacaabay inuu u fududeeyo xaqana u waafajiyo waxaanse kula dardaarmayaa inuu xilkiisa u guto si cadaalad ah oo danta guud ay ku jirto dhanka kale waxaan halkan ammaan ballaaran oo aad u ballaaran oo buuraha ka culusaan halkan ugu soo jeedinayaa wasiirkeena hore ee warfaafinta mudane cabdullaahi ciimooge xirsi oo sidii geesinimada lahayd ee dhowrkii wasaaradood ee loo magacaabay uu dhabarka u saartay waynu wada ognahay waxqabadkiisa haatan halkan kama sheegayo balse hal tusaale ayaan usoo qaadanayaa isbedelka aan ka dareemi karnaa garoonka gegida diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan oo wax badan ayuu kusoo kordhiyey qofkii aragtay ayaa dareemi karta muddadii sanadkeed oo wasiirkeeni hore xilka hayay runtii waxqabad badan ayuu qabtay waana wax muuqdo oo aan la tifiri karin waxaan leeyahay taariikhda ayaa ku xusi doonta iyo inta wanaagaaga jecel waxaan sidoo kale aan wasiirka anigoo ku hadlaya magaca ururka warbaahinta dumarka Soomaaliyeed aan qirayaa in wasiirkoonii hore inuu yahay garabkeena midig waayo wuxuu noo soo dhaweeyey si wanaagsan oo farxad ay ku dheehan tahay maanta halkan aan joogno isaga ayaa soo gaarsiiyey waayo xafiiskiisa wuxuu noo ah xafiis noo furan oo aan laga celinin runtii soo dhaweyntaasna kun jeer ayaan ugu mahadcelinayaa wasiirkeenii hore sidoo kale waxaan leeyahay wasiirkeenii hore kuma iloobi doono waynu ku xusi doonaa meel walba iyo goor walba haddii alla idmo waxaanu ku leeyahay caaqil cilmoogo cimrigaada haraago caafimaad ku nooloo caalamkoo idin cagta meeshii aad ka saarto cadowgaada shartiisa caadila ka ahaayo aniguna cisi iyo sharaf ayaan intiga kuugu haynaynaa salaam qaali ah oo kasoo goday qalbi furna waan kuu soo jeedinayaa dhammaan waa mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha waxaa idin leeyahay maasantahay shamis cabdigeedi oo ku hadlaysay magaca ururka soo agaasimay xafladan ee ururka warbaahinta dumarka Soomaaliyeed markale anigoo ku hadlaya magaca ururkan xaflada qiimaha badan soo agaasimay waxaan mahad gaar u celinaynaa Cabdullaahi Ciimooge Xirsi wasiirkeenii hore ee wasaaradda warfaafinta Maryan Axmed ayaan u yeerayaa oo ku hadlaysa magaca ururada bulshada rayidka haweenka qaranka Soomaaliyeed ururka gobolka Banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib run ahaantii wixii la dhihi lahaa waa la yiri war ma harin laakiin aniga waxaan rabaa wax yar oo dardaarana wasiirka cusub inaan usii dhiibo maadaama wasiir ku-xigeenka uu joogo iyo Ciimooge oo aan sagootinayno insha Allah markaan ku hormaro wasiirkii hore Ciimooge wax badan oo xusuustaa Soomaalida waxay tiraahdaa shan goob ma ka sheegaa ma abaalkaaga shan jeer ku jira xaqiiqdi Ciimooge oo qabtay waa ognahay waa jeclayn xataa golaha wasiirada cusub inuu ku dib ugu soo noqdo laakiin insha Allah waa nin Soomaaliyeed waa nin wadani ah waxqabadkiisa inta yar oo tirada yareed iyo waxyaabihii uu qabtay waa wixii gabadha walaasha igu horeysay sheegtay hadday noqon lahayd hawada Soomaaliya hadday noqon lahayd raboorka hadday noqon lahayd dad badan oo shaqaale cilmi u lahay hawada Soomaaliya oo kala maqnaan inuu wadanka dib ugu soo celiyo maanta shaqadii hayay iyo horumarka maanta wadanka ka socdo hadday noqon lahayd raboorka xataa saxaafadda maanta maasha Allah markaatidiisa waxay noqotay saxaafadda marka waxaan leenahay Ciimooge nin Soomaaliyeed la tahay lagama maarmo sida lagu sheego meel kasta oo joogto
dalka gudaha iyo dibadda waa lagu baahan yahay insha allah taariikhdaana qoraysa waxaa qabatay markaan wasaaradda cusub wasiir magaalkiila joogo waxaa leeyahay gabdhaha soomaaliyeed oo saxaafadda ah dhibaato badan ay qabaan xaqiiqdii dhibaatooyin badan oo lasoo koobi kara marka waxaan rabnaa in sida gabadhii walaashay u sheegtay gabdhaha barnaamijyada idaacadaha ka baxo laga siiyo qaybaha ay ku leeyihiin waan ognahay gabdhaha way ku dulman yihiin dhinaca saxaafadda ururkan uma aas-aasmin in dumar keligiis uu meel u leexdo laakiin xuquuqda gabadha suxuufiyada inuu soo saaray uu aas-aasmay sida aan la soconno waxayna member ka yihiin ururada xuquuqda aadanaha ka shaqeeya oo soomaaliya ka shaqeeya waxaan leenahay gabdhihii ha la xoojiyo capacitigooda ha la dhiso barnaamijyada jiro waxa laga siiyo tababaraha loo sameeyo jaamacadaha laftirkooda motivation hala dhiirigeliyo gabdhihii jaamacadaha inay waxbartaan ha lagu dhiirigeliyo waxbarashooyinka micnooyinka hala siiyo waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed oo suxufiyiinta wasaaradda cusub insha allah waxaan jecelnahay inay arrimahaas ay wax ka qabtaan marka ka soo jeesto gabdhihii oo suxufiyiinta ahaa waa ku mahadsantihiin barnaamijkan aad maanta soo diyaariseen run ahaantii waxaan rabaa inaadan ka caajisina oo dadaalkiina meesha aad kasii wadaan hawshiina aad meesha kasii wadaan oo aadan ka caajisina insha allah waana wada shaqayn doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sida sharafta leh ee aan ku xusunnay hadalka in waqtiga ay ilaaliyaan maadaama waqtigu uu gabagaba yahay ururadii gabdhaha saxufiyiinta iyo qaybihii kala duwanaa ee ururada saxufiyiinta ayaan galaynaa waxaan u yeerayaa dalada horumarinta ee gabdhaha saxufiyiinta ah Malyuun Sheekh Xaydar oo ku hadlaysa magacooda wasiirkeena qaaliga Cabdullaahi Cilmi Mooge wasiirkeena hore afhayeenka madaxtooyada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Cusable iyo gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaha afhayeenka gobolka Banaadir iyo dhammaan ururada saxaafadda haweenka ururada kale ee warbaahinta Soomaaliyeed iyo dhammaan soo qaybgalayaasha waxaan rabaa inaan assalaamu calaykum waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan ka soo qayb galno annagoo dalada horumarinta haweenka saxaafadda Soomaaliyeed wasiirkeena hore ee warfaafinta ee maanta loo sameynayo sagootin qaas ah oo ay u sameynayaan ururka warbaahinta gabdhaha Soomaaliyeed run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay waa guul noo soo hoyatay waayo haddaanba warbaahintii aan ka nahay haddana urur daladii aan leenahay urur kale saxaafadda aan leenahay waxaan rabnaa marka warbaahinta inteeda kale waa dulmanahay inaan mar kale aanan dhihin oo aan rightskeena iyo wixii xuquuq aan leenahay aan raadsano oo aan ugu dulqaadahaynin mas-uuliinteena oo aan dhahno annaga qaanadeeni aawe because haddaanan isi sheegin qofku sheegayo ma jiro warbaahinta inta badan waxaa la dhahaa warbaahintaa sameysay laakiin gabdhaha inta badan waxay ka shaqeeyaan waa waqtiin wanaagay ka shaqeeyaan waxay u istaageen inay wax walba oo khilaafa oo markaas warbaahinta ay xaliyaan in wax walba ay horumarkooda ka soo dhalaalaan laakiin lama sheegin gabar warbaahin joogto oo dulman ama la dhahayo waxaas bay intooda badan waa ammaano yihiin waana ka warqabtaan wasiir gacanta ayaa soo qabatay waxaan rajaynaynaa wasiirkeena imaan doona Mustafa Sheekh Dhuxulow inuu asagana gacanta labada gacan oo ku qaban doono oo weliba uu dhihi doono gabdhihii waa ka maqan yihiin qaanadan oo weliba xeerka saxaafadda dhawaan la ansixinaa doono baarlamaanka inay gabdhaha soo maraan oo ay qaybtooda ka qaataan si ay uga qayb qaataan discussion oo ay ra'yigooda saliimka u dhiibtaan walo aan hadda ay tiimka naga horeeyaysa inta badan ay baadgaray jirin laakiin hadda waxaan u taaganahay inaan wax walba oo kale tusaale aan kusoo biirno wasaaradda waana ammaanaynaa gabdhaheena yaryar ee hadda soo baxay ee warbaahinta magacooda hadda qaatay warbaahinta madaxa bannaan aadaan usoo dhaweynaynaa hadda telefishin waa yeelan oo haween ah wax kalena waa soo socdaan marka waxaan rajaynayaa inaan dhinaciina aan istaagi doono warbaahintana la yaabi doono hadduu allaha waddan ogolaado walow hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenna haysanay aan dadka aan kasii baxnay waxaan rajaynaynaa 2016 inaan ra-iisul wasaare ama isku soo sharxi doono inta ka hooseyso aad ayaa u mahadsantihiin wasiirkeena qaaliga ahna waxaan leenahay welcome
ما مقنت وانا قبل ما تمجادا لجوكتا marka qayb badan oo ku rajeynaa wasiir waan ku soo dhaweynaa insha Allah waxaan ku celinayaa waqtiga aad inoo kulaleeyaa in daqiiqadaha la soo koobo hadalka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka badbaadada suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Shariifka dhammaantiin horta waan idin salaamayaa marka hore waxaan u mahadcelinayaa wasiirkeena hore wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Cilmooge oo aan si aad ah u jecleen waqtiga uu naga waday wax badan shaqo soo qabtay sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa xubnaha wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka Cabdullaahi Colaad Rooble oo wasiir ku-xigeenka oo haatan wasiirka matalaya ayagana waan soo dhaweynaynaa sidoo kale kasoo qaybgalayaasha gudoomiyaasha degmooyinka Hodan Shingaani gudoomiyaha afhayeenka gobolka afhayeenka aan la taliyaha madaxweynaha dhammaan waa salaameynaa ururka haweenka qaranka lagama tagi karo ayagana iyo saxaafadda wax badan ayay dagaaladii ilaa ay nabadda isla shaqeynayaan marka dhammaan saxaafadiinta kasoo qayb gasho waan salaameynaa runtii Cilmooge taariikhdiisa lagama sheekeyn karo oo wax badan uu noo soo qabtay intii yareed uu joogay haddana waan jeclay inuu joogo laakiin isbedelkii guud ahaan saameeyey dowladda ama xukuumadda oo dhan ayaa asagana dhinac uu ka galay laakiin qof walba wuxuu qabto ma qarsoomaan oo way soo baxaan Cilmooge hadaati waxaa laga dhawaajiyey garoonka diyaaradaha oo keliya laakiin hawadii Soomaaliya wax badan dalka Soomaaliya ka maqnayd ayuu dib u soo celiyey oo dad markaasi Soomaaliya ka tirsan oo sida Somaliland iyo Puntland oo kale guddiga Nairobi ka mid ahay laakiin wuxuu ku dadaalay sidii magaca Soomaaliya hawadu soo celin waxyaabo kale uu qabtay oo dhinaca boostadii la furan waa jirtaa shaqo badan uu qabtay meesha uu dhigay asaga hawsha uu hadda ugu dhaqaaqay oo ku wareejiyay wasiirkii iyo ku-xigeenka hadda Colaad Rooble nagala joogo ayagana waxaan ugu hambaleynaynaa inay halkaasi ka sii wadaan Cilmoogana hadda hadduu baxa asaga laakiin wax qaladkiisii muuqda oo dhinaca garoonka diyaaradaha hataa dugsi tababar ay jira laga furayay maadaama hadda hawadii lasoo wareejinayo shaqaalihii ku shaqeyn lahaa tababar ugu socday marka wax badan uu qabtay madaxda cusub ee wasaaradda oo hadda wasiir ku-xigeenka nagala joogana waxaan ka sugaynaa ayagana inay halkaas kasii ambaqaadaan bahda saxaafadda horta ururo badan ay yeelatay ururadaasi badanna waxaan laga rabaa sidaad u kala maareyn leedeen oo hoosha u socon lahayd oo aan cidna la tuurin ururadii badnaa saxaafadda xaggeeda ka jirnay waxaa hadda maanta fursad u heshay ururka warbaahinta dumarka Soomaaliyeed oo isku helay wasiirkiisii baxayay iyo wasiiradii soo galayay oo fursad u helay inay isku keenaan inkastoo ayaan dhaweyn ay dhacday xafladda wasiirka cusub lagu soo dhaweynaa laakiin xafladda ugu wanaagsaneed ee ku aadaneed waa tan oo wasiirkeena horena aan sagootinayno kuweena cusbaana aan soo dhaweynayno marka waxaan idin leenahay hambalyo dhinaca kale ee saxaafadda Soomaaliyeed wax dhibaato hadda kama jirto oo saxaafadda marka hore waa koobneed hadda laakiin gudaha iyo dibaddaba saxaafadda Soomaaliyeed waxay noqotay mid weyn oo banaanka taalo aan la qarin karin runtii waxaan xasuusanaa in dalkan dhibaato badan uu soo maray dhibaatadii soo martay dalkan ay saxaafadda ka mid noqdeen dadkii markaasi dhibka ka saaray qaarkood waa lagu dilay qaarkoodna waa lagu dhaawacay qaarkoodna dalka iskaga haajireen intaasna waxaa lagula dagaalayay horumarka ay dowladda qaadayso sheegideeda oo dad badan baa nooga dhintay in ma ilmaano oo waa xasuusanahay haddana waxaan ka codsanayaa saxaafadda Soomaaliyeed urura ahaadaan agaasimayaal ahaadaan warbaahinta qaybeeda kala gidsan waxaan ka codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca ururka badbaadada suxufiyiinta Soomaaliyeed inaad dowladda garab istaagno oo aan sii dhaqaajino oo dowladdeena garab aan siino marka khudbadihiina waa la badayaa madaxdana way noo joogtaa madaxda cusbeed iyo kuwii hore afhayeenkiina waa joogaa oo hadda gobolkan aan ku suganna afhayeenkiisaa joogo afhayeenkii ugu sarreey ee dhinaca madaxweynahana wuu joogaa marka warar badan aan noo yaallo marka waa mahadsantihiin wasiir ku-xigeenka howlaha guud wasiir ku-xigeen raaliga noqo nacayb ma jiro waa Maxamed Yuusuf waxaan maleynaa gabagabadii barnaamijkeena dhinacii suuqyada aan ku soo wareejin doonaa mar dhow Maxamed Yuusuf ku soo dhawow وزير كحيانك وزارة informationك وزير كحيانك وزارة هؤلاء الجود لطليها مدحوينها أنا فيانك مدحتويدا ururada haweenka Soomaaliyeed halkan fadhiya dhamaan inta ka soo qayb gashay qof walba title kasto ku fadhiyo waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waqtiga aad u yar runtii hadal badan meeshan noogama banaana laakiin waxaan rabnaa inaan la qaybsano gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed inaan la qaybsano
sagootinta wasiirkii hore iyo soo dhaweynta wasiirkan cusub hal mid oo muhiim ah rabaa inaan halkan ka sheego dhawaan annaga haddaan gobolka banaadir waxaan iclaaminay in guryaha magaalada muqdisho ku yaal aan bostico dhexdeeda u samayn doono taasna waxaa keentay taladii fiicneed ee wasaaradda ciidamada u hayay oo wasaaradda boostada ahayd guushii ay ka gaartay soo celintii boostada 20 sano kadib annaga waxay nagu dhiirigelisay inaan guri kasta u samayno ku amarno guri kasta oo muqdisho ku yaala inuu samaysto bostico inaan u samayno wadooyinka inaan nambaro u yeelno in adress la helo qofka maxaa la yidhahdaa si sahlan uu ku tegi karo guriguu rabo in qofka gurigiisa hortiisa loogu keeni karo boostada isla markaasna midda uu diraayo uu halkaas dhigayo waa casri waa hawl maxaa la yidhahdaa wasaaradda boostada inoo horseeday waa ku ammaanaynaa wasiirka hawshaas maxaa la yidhahdaa wanaagsan uu soo qabtay kolleyba soomaalidu waxay ku maamahdaa qofka markuu dhinto ama uu meel ka tagaa la ammaana laakiin inta uu joogo caqabado fara badan imaanaya wasaaradda hadda hogaanka cusub ee wasaaradda yeelatan waxaan kula dardaarmaynaa xagxagasho badan ay sugayso u dulqaata haddii alla idmo waa hawl culus waa hawshii dhan oo dowladda ugu muhiimsaneed warfaafintaad haysaan waa idinku soo dhaweynaynaa waxaana ballan qaadaynaa sidii wasaaradda aan weligeanba ula shaqayn jirnay inaan ula shaqayno oo maxaa la yidhaahdaa aan sidii si kasii labalaaban weliba aan idinla shaqayno waa idin soo dhaweynaynaa mar kale waqtigu aad u yara maqribaa la joogaa ma raba inaan hadal badan idin dhahno waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabadhii barnaamijkeennan aan ugu talagalnay inaan kusii sagootino wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta cabdulaahi ciid mooga xirsi kuna soo dhaweyno wasiirka cusub ayaan ku guda jirnaa afhayeenka madaxweynaha oo martideena sharafta leh ka midka ah ayaan kusoo dhaweynayaa cabdiraxmaan cumar cismaan yarisow wasiir ku-xigeenka warfaafinta wasiir ku-xigeenka howlaha guud gudoomiyaha degmooyinka martisharafta kale ururka haweenka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed dhammaan madaxda ururada kala duwan ee warbaahinta soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharaf weyn bay ii tahay inaan kala soo qayb galo aada iyo aad bayna dareensiinaysaa dumarka iyo hay-adaha organisationada ay samaystaan sida ay uga go-an tahay inay bal muxuu ahaa xusaan madaxdoodii hore soo dhaweeyaan madaxda cusub runtii waxaan is leenahay waa horumar dalka uu gaaray waxyaalaha kale oo la xusi kara waxaa ka mid ah maamul wanaagga in wasiir uu baxo wasiir kale xil ku wareejiyo documenti laga reebo wasiirku wuxuu qabtay la sheego wasiirka cusubna maarata waxay u noqonaysaa dhiirigelin kii horena waxay u noqonaysaa qof shaqo qabtay lagu abaalmariyey marka maamul wanaaggan iyo dhaqankaana runtii waxaan rajaynaynaa inuu noo horseedo in dalkan ay ka dhacaan 2016 doorashooyin xora in dalkan horumarka iyo amniga uu qaaday uu sii qaado wasiir cilmooga isna waxaan leenahay wasiir maarata sii dhaweynaynaa sii sagootinaynaa wax badan baa maaragtay halkan laga sheegay waxqabadkaagiina muujinaya xil wareejintaadina aad baad ugu sheegtay waxaalihii muddadii yara joogta kuu qabsoomay waxaan rajaynaynaa wasiirka cusub mustafa iyo colaadna bal inay meesha kasii ambaqaadaan waxyaalaha ugu muhiimsan waxay tahay sharcigii saxaafadda oo diyaar ah oo runtii cilmooga aan uga mahad celinayno iyadoo la marsiiyey golihii wasiirada ayuu la tashi uu la sameeyey warbaahinta soomaaliyeed ay dalbadeen in la tashiyada lasii kordhiyo inuu ka codsado ra-iisul wasaarihii xukuumaddii in dib loo soo celiyo la tashiyada la sameeyo guddi task force uu sameeyey wasiir ku-xigeenkiisii cabdishakuur madax ka ahaa hawshiina maanta ay marayso in dhammaan goboladii la tegey oo la soo tashtay dadkii haddana ay diyaar tahay oo wasiirka cusub iyo howlaha horya ay tahay bal inay dhammaystiraan oo baarlamaanka laga ansixiyo iyadana aad iyo aad baan wasiirka uga mahad celinaynaa taladaas uu warbaahinta soomaaliya ka aqbalay annagana waxaan rajaynaynaa in inta dhiman si wadajira loo sii dhameeyo mar kale aad iyo aad baan u sugootinaynaa wasiir cilmooge aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wasiir kaxilo iyo colaad waxaana u rajaynaynaa in ilaahay xilqaas culus u fududeeyo annagana aan diyaar u nahay inaan la shaqayno la talino wax alaale wixii warbaahinta soomaaliyeed ee horumarkeeda ka shaqaynayaan aan garab istaagno waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu afhayeenka madaxweynaha gabagabadii barnaamijkeena ayaan maraynaa waxaan ka cudur daaranaynaa dad badan oo inoogu qornaa in halkan khudbada ay ka jeediyaan oo ay suurto galeen waqtiga awgiis dadkaas oo ay ka mid yihiin marti sharaf ka socota idaacadaha iyo telefishinada ka howlgala magaalada muqdisho waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynayaa iminka wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta maxamed ismaaciil shuuriye faafinta cabdullaahi iyo xirsi wasiir ku-xigeenka
afhayeenka madaxweynaha gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir gabdhaha horteyda fadhiya ee sharafta badan khaasatan kuwa soo qabanqaabiyey xafladda tan iyo marti sharafta kale bahda saxaafadda kulligiin waxaan ugu salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib arrinta tan aan galabta iskugu imaanay waa arrin taariikhi ah waa arrin dowladnimo ah muujinaysa in qaranka Soomaaliyeed uu u gudbay xilli macnaha mataqaanaa sida adduunku uu ma aragtay mad ugu dhaqmo oo dabeecadaha lagu yaqaan dadka macnaha mataqaanaa dowladnimada ah arrintaas runtii aad bay ii taabatay waa arrin sharaf ah in wasiir dadkii uu la shaqaynayay ay sidaan macnaha mataqaanaa u jecel yihiin ay sidaan macnaha mataqaanaa u sheegayaan macnaha mataqaanaa qabadkiisii wasiirkii kale asna macnaha mataqaanaa xilka la wareegay asagana macnaha mataqaanaa lagu soo dhaweynayo arrintaa runtii waa bilow fiican oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed arrintaasna waxaan jeclahay in la sii wado oo la sii taabageliyo intaa kadib aniga khaasatan ka maxamed ahaan wasiirka warfaafintii hore Almooge saaxiibkay buu ahaa runtii waxyaabo badan oo uu habeeno badan uu ku soo jeeday laba qof markay dee saaxiib yihiin wasiisiyo yihiin halka sano uu hawshan u hayay waxaan markhaati ka ahaa oo ogaa inuu waqti badan oo juhdi badan uu geliyey khaasatan maanigu hoos aan baan usii ogahay in macnaha mataqaan halkaas sano aan aaminsanahay uu joogay in danihiisi kaloo idil iyo faamiladiisii iyo baraagadkiisii uu meel uu iska dhigay taasaa keentay marka maanta arrinta tan ah in wasaaradii uu mas-uulka ka ahaa warfaafinta keliya ma aha boostada ka mid ah oo halkaas sano runtii Soomaaliya oo 23 sano ka maray taariikhda lagu soo celiyey waxaa ka mid ah wasaaradii gaadiidka iyo duulimaadka waxa uu ka qabtay iyo tan warfaafinta oo maanta halkan abaabushay arrintaa marka waa arrin taariikhi ah waa arrin aan uga mahad celinayno haddii aan nahay golaha wasiirada cusub mudanahaas Cabdullaahi Ilmooge waa ay taariikh xusi doonto intaa kadib waxaan rabaa wax yar saxaafadda saad og tihiin saxaafadda waxa weeye dalka kan waxa weeye waa lambarka afraad macnaha mataqaan hay-adaha jira lambar 4 bay ka gelaysaa markii xukuumaddii baarlamaankii mataqaanaa maxkamadihii la fiiriyo waa qaybta afraad bay imaanaysaa saxaafadda marka runtii Cabdullaahi meel fiican buu soo gaarsiiyey shuruuc badan u soo diyaariyey aniga baarlamaanka ka mid ahaa barnaamijyadii ay noo soo gudbiyeen tala ahaanay dib isku noqon aad iyo aad kuwa dhaxalgal oo aad u quruxsan bay ahaayeen waxaan rabaa marka saxaafadda Soomaaliyeed weji cusub baa bilowday waxaan aaminsanahay oo Soomaaliduna ay tiraahdaa war la helaa tala la helaa haddii aan war la helin tala ma imaanayso subaxdii marka aan soo kaco idaacadda furaa intaanan isku sheegelin idaacadda furaa war baa dhageystaa marka warkaas waxaa laga yaabaa subaxdaas inuu ii noqdo wixii aan ku shaqo tegi lahaa marka runtii marka runta ka hadlo dalka kan dadkan suxufiyiinta ah qaybta ugu weyn bay ka qaadanayaan nabadgelyadiisa dib u dhiskiisa dowladnimadiisa waxaan leeyahay marka xilligii hadda waxaa la joogaa ah in dadka lagu baraarujiyo dib u dhis in dadka lagu baraarujiyo walaaltinimo in hadda la yareeyo hebel baa dhintay hebel baa halkaa meed yaallay laakiin hadda macnaha mataqaan ay noqoto in la yiraahdo hebel baa sartaa dhisahaya hebel kambanigaasaa yimid kambanigaasaa macnaha waxaas faa'iiday in macnaha mataqaana xilligaas ayaan aad u jecel lahay in ay saxaafaddu aana ka codsanaynaa inay hadda macnaha focuska ay saaraan hadal badan meesha iima yaallo madaxdii baa iga dambaysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadkii hawsha soo abaabulay wasiirka la sagootinhayo asigana waxaan leeyahay runtii kamuusa tegin shaqada waxaa weeye waa in loo baahan yahay waa walaalkeen wuunala joogaa waxaan aaminsanahay in wixii uu ka tegey la xafidi doono waddadiisina la sii mari doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ugu mahadsantihiin
martida nagala qayb galaysa barnaamijkan aan ku sii sagootinayno wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta kuna soo dhaweynayno wasiirka cusub ee wasaaraddaasi gabagabadii barnaamijka ayaan maraynaa waxaan u yeerayaa gudoomiyaha ururka dumarka warbaahinta Soomaaliyeed Nimca Xasan Cabdi si ay ku soo dhaweyso wasiirkii hore ee wasaaradda wasiir ku-xigeenka oo inuu soo xiro oo wakiilka ah wasiirka cusub ee warfaafinta Nimca ku soo dhaweynta gaadiidka mudane Cabdullaahi Cilmooge Xisi iyo soo dhaweynta wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Mustafa Sheekh Cali Dhuxul ururka warbaahinta dumarka Soomaaliyeed ayaa soo agaasimay xafladda sagootinta oo aan ugu talagalnay in aan siino maanta ama aan ku xusno waxqabadkii wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Cilmooge Xisi anagoon ugu baaqayno wasiirka cusub ee wasaaraddaasi iyo ku-xigeenkiisa in ay saxaafadda ay garab qabtaan ujeedka ama ururka loo asaasay wuxuu yahay in aan abuurno hablo Soomaaliyeed oo awood u leh in ay soo saaraan barnaamijyo tayo leh kana hadlaan horumarka dalka Soomaaliya in haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed ay midoobaan una soo wada jeestaan meel qura waxaan higsanaynaa in dumarka Soomaaliyeed oo idil isku fikir noqdaan dhibaatooyinka isna ay ka hadlaan Cabdullaahi Cilmooge Xisi wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta ma ilaawi doono taageerada hagarla'aaneed oo noo fidiyay kowr ahaan waana ku ammaanaynaa waad naga mudan tahay inaan taalo ku dhisno balse maanta waxaan kugu talagalay inaan shahaado ku guddoonsiino ka urur ahaan taasoo gogolxaar u noqon karta inaan taalo ku dhisno Cabdullaahi Cilmooge Xisi xilka hayay xafiiskiisa ka urur ahaan wuxuu ahaa mid noo furan oo wax caqabada kalama kulmin wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenkiisa waxaan codsanaynaa inay saxaafadda ay xafiisyadooda u furnaadaan hadal badan halkan kama jeedinayo mudane Cabdullaahi Cilmooge Xisi waxaad ii ogolaataa inaan ku guddoonsiiyo shahaado sharaf ay kuu soo diyaariyeen ururka warbaahinta dumarka Soomaaliyeed marti sharafta ay ka joogaan ugu horeeyaan golaha wasiirada Shuuriye iyo Cabdullaahi Colaad labada haddana xildhibaan ah kolay xildhibaanada haddana buuxinaya shuruudoodii gobolka ama mas-uuliyiin kala duwan nagala joogta had salaad ay ku maqan yihiin yariiso ujineed afhayeenka xukuumadda ururka khaasatan nacashumay maanta ito oo martiqaadkan isu soo dabariday markii lasoo gaabiyo SOFM ama muxuu ahay ururka dumarka runtii warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxaan jooga oo kala dareensanahay ururo warbaahineed oo badan oo kala duwan oo rag iyo dumar iyo kuwa isku jira intaba leh waxaa jira oo kale agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee warfaafinta iyo gaadiidka isgaarsiinta oo intuba ay meesha fadhiyaan ganacsatada Chamber of Commerce intii aan ka tegay bahda saxaafadda intaas oo dhan all observed waxa weeye aad iyo aad baan idin salaamayaa salaanta islaamka aan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta into waxay ii tahay farxad aada u weyn runtii wax siin ka weyn ma filayo asmaadan aad ii samayseen waayo qalbigiina aada tusteen waxa uu yahay garasha taagli garashadiinii baan meesha joogta taasaan meesha kala tegayaa saxaafad marka laga hadlayo waxaa leedaha war helaa tale hela allahu naxariista maxamed siya dowladdiisa waxaa lagu kartami jira la dhihi jiray wuxuu ku haystaa waddanka ciidamada iyo warbaahinta iyo waddanka ku haystay wax kale uma baahnayn maxaa sabab loo lahaa waxaa weeye warbaahintii oo muxuu ahay dadkii baraarujinaysa oo waa beriga xoog lahayd iyo raadiyaha muqdisho oo xoog lahaa meel bagaalayay iyo ciidankii oo xoog lahaa iyo waddanka oo dhan ku haysta marka warbaahintu wax laga maarmo maaha haddii aan qiiradaas xaliim oo kala joogto oo aynan markaa shir galayno aynan maaragtay aynan intay istaagto aynan maaragtay stop intay gelaysa hakad aynan maaragtay ku dhufanaynin buraamurkaas
dadku hore uma dhaqaaqayo dadku muxuu uu kala iloobaya u horreeyo inuu sheego hadal badan hadal ma buuxsho waxaan rabaa inaan idiin sheego xukuumaddu waa qorisu dhiib waxa weeye qof joogto u joogaya ma jiro waayo hadda 10 prime minister baa isbedeshay 10 ra-iisul wasaare iyo 3 madaxweyne waa ilaa 2000 waan ka hadlaynaa waa 4 madaxweyne iyo 10 prime minister waa dareemi kartaa marka waxaa weeye xukuumaddu markii ra-iisul wasaaruhu dhacaan way la dhacdaa taas way la dhacdaa wax la yaqaano weeye fuliahantii ma mooga annaga waxaana lahaa 6 bilood gaari maysaan annagu 14 bilood baan gaarnayba 6 bilood marka ku talagalkana wuxuu ahaa timeka chase gareeya waqtiga eriyada waqtiga eriyo maadaama aad og tahay ee lagu yidhi abriil bay kaaga eg tahay xil kaaga egya haddaad xasutaana waa tii mooshinna laga keenay june oo aanu iska difaacnay muxuu ahaa marka waxaan rabaa inaan idiin sheego oo meesha yaalla annagu miina baadhaan ahayn miina baadha oo taqaana fardaha marka hore way cusub yihiin in la layliyo weye fardahu yani keenadana ma ogola muxuu aha in la fuulana ma ogola dushiisa marka waa in la jaro baro dhib badan baa laga kulmaa marka qof yaqaana tababara kadib wuxuu ogolaadaa in muxuu ahay keenada la suro muxuu ahay socodka nooca la maraa marka istaagay marka ordayo inuu dadku fuulo yar iyo weyn hadda hawsha annagaa usoo qabanay hawshaas oo dhan annagaa soo qabanay waxaa golaha uu nagala joogaan colaad iyo shuuriya ay naga dhexlahayaan beer falan oo la falay waayo mashaariicda aanu hadda samaynay ee hadda ay la wareegahayaan een diyaarinay ee hadda warfaafintoo kale la wareegayso ee dhowrka milyan ah ee hadda ay la wareegayaan oo kale wasaarad walbana way tahay ama gaadiid haato ama tukala haato lakin waxaan ka hadlay mitaal ahaan warfaafinta yani anagu maana haysan opportunitygaas laakiin in la diyaariye ahayd oo la falo waxaa qabadka anagu waa walaa shukra cala alwaajib because anigu personal shaqo ma soo doono shaqo waan haystaa dadka intii taqaano shaqo waan haystaa laakiin waxaa weeye waxaan u heelanaa inaan arko soomaaliya oo sidii aan arki jiray ama ka fiican qofka jira maanta qofka soddonka ka yar ama jira wuxuu arkay curbo iyo jubbo oo sideedana ma uusan arag iyagoo 5 star oo swimming pool leh oo meel lagu dabaashada marka haddaad weysa ku leeyahay marka intaa arkaysaan ahayd innagoo afrika oo dhan ugu xoog badan ciidan ah oo South Africa Egypt mooye wax qaarada oo dhan nala awooda muusa arag oo teleefon ku xallina dowladahaas dagaal ay joojiyaan sida Uganda iyo Tanzania oo kale joojiya xabad marka yani qofku markuu soo arkay soo arkay isagoo la dowlad qof kastoo Soomaaliya dowlad taga foreign-ka dibadda aada waa tijaabo waa test shacabkaana oo ah muxuu ahaayey imtixaanka qofka saxaa qof shacabka oo waayo dowladuhu markay isbedelaan anaa kaa ficnaa iyo anaa kaa ficnaada iyo hebel baa ku dhaamida waxaa keenaya competition haddii hadda cod jiri lahaa adduunku waxaa lagu tartama waxa loo yaqaano codka 1 man 1 vote rag iyo dumar baa laga wadaa albaab in la garaaco annaga qoladan ka fiicnayn hadduu waddanku nabad yahay oo intuu nabad yahay uu jiro codkaas waxaa imaan lahayd in shacabka kala saaro awoodii shacabka hadda ma hayo waayo waddanku nabadgelye maaha waa ogtihiin golaha waxay nagala jooga golaha shacabka labadan wasiir bay nagala joogay iyagana odayaal nabadoonnaa keenay marka waxaad ogaataan yani xaqiiqadu waxay tahay waxaan ku khasbannahay inaan wax badan sugno oo u dulqaadano shalay meesha joogtay ma joogto qof walbana waxaa ugu dhib badan qofka ugu sarreeya ruuxa kale jarada sida xasan sheekh oo kale yaa ugu dhib badan waayo caalamka dibadda kuwii gudaha qabaa'ilkii barasharkoodii colaadii dad soo wacaya wax sahlan maaha maamulku marka qofku iskama fadhiya meesha wasiirku hawl baa u taala
ولي عنده سدح وزارات مسكوهين ما هاي نقول دعوة مرك ولا ندمر وهاي نقول دعوة يلا ولا كان في الفريق وتفاريق أو قف بيقارن مال كومن أو آلية سيد عرض بين جالس شوية ورفافين وجديد أردن لقى صاري وإسقاسين يبوصل لقى صاري وهذا ما دعوة كتران كي ورفافين تقولوا سي دق أي أوجن الكلام هاي دادير وهي أنصاف الله بعدين والديار كواهي قصنا يا وهذا أنا ديش سياسته الباب لا قال لي الباب لا قبل حمارة مركزات شكلين قال له مصعود شغل هذه سنمي وهذا الشغل من هذه الليلة وأوصل لسنة يا هاليري يا إسلام أمورات إنه يسوي أوجين هم الشيء هداية تقف معك في تويلي والماشي واحد كوري وشيء وقمر هوست وشيء دكتور وشيء هذا وهوي وهمر يساع عرضنا في دكتور قوي تاجين جيس كذا عندنا جيس ساعة وهوي ونكتري أفضل ببورس وسم سرايدا يعني نكتري وحي أنا شيء لها وانا يقرناس لا بهنا يعني دخل قرناس كلام هنا لكن وهي وانا عن شيء كريم وان شيء أو نوع من نساعد نسي مركا ولنا أبن وعبير دور كاسو أبن ويا الباب كاسو أبن ويا تحليل شيء واسع واسع إنه حلو تحليل دورنا تحليل شيء نوع كاس واسع وحن تشيني اللي لا يوفو ذايو شوية دمسها مركي اللي بصار هو يشيف مرة فسح ومعنا ما هي وحده وكتير لكن ضمير كاجي ما كشينا بس عطوا ما كشينا أنا صار بارون بداية قف عشري ويفهم الكاجو دريمية نفتح هذا لو دريميس لكن محاكو أريا وطن كاجو نبى أريا فكر فيه شو ميزانك وضد كاوليه يضل كاو يواحد السعوته يا هاي يا كريبي هذا مركا هنا قبل الله انت هنا لله وانت هذا انت يرنتي صحافه بما بدن هاي اي رنتي ما انت ترقي قبل قبل ما هو ثاني رقي دون الراي هاي ادي وسو دوين سي قيرده له ان ادين شاو waxaa lagu jiraa information age dunidan hadda aan ku jirno waxaa la yiraahdaa da'dii akhbaarba adduunka haysata ama ganacsi ha noqoto ama isgaarsiin ha noqoto wixii saaka lagu quraaday madaxweynaha prime ministerka jooga Australia ku quraaday waa taqaan saaka Australia qolay wuxuu ku quraaday marka adduunka hadda warbaahin baa haysata marka casrigan idinka inaad hore u maraysaan ku fakara inaad isu tagtaan ku fakara تفاريق معنا بس نقص جاين تنا نقطان من دار نشوا رول كي دمر ومغرا ما أنت تو دمر كأسيشن كنا آد معروف سمح ولمن آد شهوا يستر يا هوا عالم كنا وايدين هليه أو ديل تركا عالم كين سبلا نجاهر مري هاي قاعدين فهمين ديل تركا دمر حقوق إنه كتشت إنه حقوق كتشت إنه شو ديل ترى واي انت بدل شغلك ادوك اكتو waxa lagu dhiirigelinayaa gabdhaha waqtiga inay arintaas si gaar ah khaas hada waa shaqo la faafiyay gabdhaha si gaar ah loo dhiirigelinayaa waqtiga ama aan noqoto dunida westiga horumartay ama yaraykan aan noqoto laakiin marka waxa ogaataan maxaa keenay in aad tartanka gali weydaan waxaana aanu qabada wata gurigii wada wata inagoo tagelintu meeshay ka imaanayso waa reer bal isnaa karo aan gawar ku jiro marka waxaa ka maqan oo shaqadan aad galaysaan ee ragga la qaybsanaysaa ka maqan mid gaar ah oo boqolka konton oo annagu aanan hayn waxba ka hayn ma bersantaana ka hayn mar labaad waa idiin mahadcelinayaa gabdhahaan runtii mana dhihi karo intii aan kelimadahan reebo dhan ma dhihi karo mahadcelina jazaakum allah waxaan rabaa inaan hilmahada kuma jiro inaan ku bilaabaan rabay waxaa dhintay nin mas-uul ah oo qaali ah oo waddankeena taariikh aad u qiimo badan ka soo maray Abdulsaaq Xaaji Xuseen oo aad wada taqaanaan oo waddanka ra'iisul wasaare ka ahaa welina siyaasadda aan ka bixino hadda magaalada degan yahay Minneapolis ee Mareykanka oo weli midnimada Soomaaliyeed meel aan uga hadhin soo da'daas I think 90 iyo ziyaado ku dhintay
ساشن يقول ساشن لو لكن عندي شيء ninkaasu caqligiisu taan buu ahaa dadka qaar baa isagoo aan 80 gaarin waxaa ka taga dimension madaxiisa oo ma aha xusuusta ka tagta sidii buu ahaa oo barnaamijkii hadameeda oo ninkaasu aas qaran buu soo socdaa wadanka loo soo wadaa xukuumadda ama waxyaalaha xukuumadda Soomaalidu hadda mid walba iyo tii horeba iska hilsaaraan waxaa ka mid ah aas qaran in qofka loo sameeyo aas qaran الله أنا هرستان لنا هاي سنة الله كورابيو هذه الشيء سمري ما صادق الله كسيه سوالوين بكرتي ما قيمة رنتي أدوي أي نوع فديا نكاسنا هواي الدين هاي وصاص الله وحيالها الدهيب وأرمها سجودية كم إذا هاي اللي بدهنا إيماني وهم الله روينا نكنا بجريو تذكروي من جربته لكن مناسبة داري ومناسبة وشرف قضيت أنا كيني وقام قالني مصطفى على بعد مثل هي الله فوذيه نمعوا هلا هذه تيم كارو ده سكما ناشن كلمة ما هالنا ما لك كمان نسكت كترنا أول وين بعقبتين أنا ونا أنتي ما هي حروف مفردة ما ندير هذا no words أنا ندير هذا أنا كم هالعلية to express myself هو جزاكم الله الصومالي حمدوا Somali hasraado Somali hormar hasamayso Somali cudurada ka baado hamidooda Somali waxaan ugu dhex jiray oo shuushku naga baxay waa salaamantiis raadi wasaaraddan wasiir ku-xigeenka howlaha guud maamulka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka bahda saxaafadda dhammaan waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib anigoo ku hadlaya magaca dowladda waxaan isaga tacsiyenaynaa geeridii ku timid ummadda Soomaaliyeed walaalkeeda zaariyo bare cabdirasaaq xaaji xuseen allah u naxariisto ehelladii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday samir iyo iimaan allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intaas kadib runtii farxad aad u weyn ayay tahay inaan idinkala soo qayb gala xafladan sharafta badan ee soo qabanqaabeen ururka warbaahinta gabdhaha Soomaaliyeed ee suxufiyiinta aan dhaho maalmahan waxa waaye hadda ku horna waan soo dhaweeyeen aaday waxa waaye ushadayeen baryahan maasha Allah dumarkeena Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa hadday howl bilaabaan inay si fiican u qabtaan hawsha dhammaystiran marka waa mahadsantihiin aan ilaahay hawshiina meesha kasii wada insha Allah haddii ilaahay yiraahdana annagana intaa soo gaarsiiseen waa idin sii dhiirigelin doonaa haddii shalay saaxiibkii bixin iyo sacadda oo ka jooga maleyna agaasimayaal ay ahaayeen oo ayaga keligood mukeefka ku jireen waxaan rajeynaa insha Allah hadda wixii ka dambeeya ka shaqayn doonaa in gabdhaha Soomaaliyeed oo suxufiyiinta in ayagana hadduu ilaahay yidhaahdo agaasimayaal iyo madaxtooyadeed inaan ka dhigna idaacadda raadiyo muqdisho oo ka bilaabi doonaa insha Allah boqolka maalmood soo socoto oo arki doona insha Allah mahadsantiin intaas haddaan idhaahdo wasiirkii hore master ciilmooge runtii inuu shaqo badan soo qabtay waxaa u daliilay dadka inta fadhiyo qofkan markuu shaqeynayo waxaa muhiim gurigiisa in laga ogaado marka bahdiisa warfaafinta oo la shaqeynayo inay maanta xafladan qiimaha badan ay u sameyso waxa waaye waxay muujinaysaa inuu shaqo badan uu soo qabtay inkastoo annaga naga maseersiiyo waxa waaye ammaan badan iyo buraabur badan loo tumo annagana waxaan rajeynaynaa markaan baxeyna insha Allah inaan saas oo kale suldaanno buraanburi doonto insha Allah anigoo ku hadlaya wasiirka wasaaradda saaxiibkay dhuxulow magaciisa waxaan runtii hambalyada iyo mahadda iyo sii sagootinta aan la qabaa bahda warbaahinta Soomaaliyeed runtii cilmooga shaqo badan oo qabtay horena waa isku soo aragno waa aadaan u dardaaranay
waxaan rajeynayaa inaan annagana aan sii dayn doonin oo faraqaha qabsan doono si intaan ku feena ka istaagayno oo arrinkaan nagala garab galo shaqadan sidaad la socotaa warfaafinta waa dhib badan tahay oo waxa waaye waa shaqo aad u qodaxyo badan waa insha allah ilaahayna mootiyo laakiin ciilmooga insha allah haddii ilaah yiraahdo saaxiibkii waa idinla joogi doonaa annagana waa nala joogi doonaa taladiisana waa ku shaqayn doonaa insha allah waxaan rajeynaa meesha uu soo gaarsiiyey inaan kasii wadi doono insha allah hadduu ilaah yiraahdo annagana wax badan aan sii qaban doono aadaan idinku mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha xafladan aada u mahadsantihiin aniga war badan ma dhihi kara cilmooga waxa waa 60 sano iga weeyahay marka intaasoo mar kale waa idin mahadcelinayaa aada u mahadsantihiin kaliya xafladiina soo xiro wasiirkeenana insha allah si wanaagsan oo sii dhaweyn doona insha allah aada u mahadsantihiin عادي الجماعة وزير كحيانك وزارة الرفاقية عبد الله علاء أنا هذا إنه مثلا وزيرك أو وزارة نصر الدين برنامج كان واسوق بالبيسن إن أنا أكون حال وإن هل بتقدروا مسؤولين تيادات كلنا وقيبية وحاسميني أورو ديرادو سعدية وومن أسوسيشن أو كشقين دون هرمرينتا قبلها ما كان لا هرمرينتا وحاوينا قبلها وحاوسمين السنتر وحنبرد دون هرقامك وكله فرسموي كجعنتا cunto karinta iyo waliba wax walba oo xirfado ay ku shaqeysan karaan sida saxaafadda Englishka iyo xirfado kala duwan aan bari doonaa gabdhaha waxaan idinku codsanaynaa inaan ugu gacan siisaan horumarinta dumarka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inuu noqdo ururkeena wadanka Soomaaliya wax weyn ka qabta dumarka Soomaaliyeedna wax u qabta waxaan aniga ku hadlayaa magaca Saacadiya Women Association ka codsanayaa madaxda sare ee dalka ama ugu baaqaya in shaqada ay ka joojiyeen gabdhaha militariga loo fasaxo anagoo u doodayna dumarka guryaha idinka hayeen hoosha ilmaha biilkooda idinka hayeen runtu waa wada ognahay hadda dumar badanaa shaqeeyo dumarka shaqadoodayna rag ku tiirsan yihiin oo wadanka raggii dagaala dhameeyey shaqa la-aan qaarna way tageen marka madaxda waxaa ka codsanayaa in dib loo fiiriyo arrintaas oo aan u aragno go-aan lagu degdegay waa mahadsantihiin barnaamijkeena waa xirinaynaa waxaa idinka codsanayaa inaad nala shaqaysaan Saacadiya Women Association si gaar ula shaqaysaan haddana waxaan madaxda ka codsanaynaa aqoonta group inaan wada galno waa mahadsantihiin Kaya gala